barasabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalac ayaa axadda 9 Febraayo kulan la qaatay gudoomiyayaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee dawladda. Kulankani oo ujeedadiisu daaranayd maamul daadajinta heer gobol isla markaana lagu gorfeynayay sidii loo horumarin lahaa adeegyada aas-aaska oo ah arrimaha bulshada ee degmooyinka gobolka Gabiley oo ay ugu horeeyaan adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha. barasabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalac oo ugu horeyn kulankaasi furay ayaa sheegay in ka maamul gobol ahaan ay gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka ku dhiiri gelinayaan sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen horumarka ka socda dalka sidoo hadalkiisa u dhigay. waxaana uu mas'uuliyiinta degmooyinka ku amray inay ka shaqeeyaan baahiyaha arrimaha bulshada iyo amniga. in aynu ka bilowno maamul daadajintii runtii caafimaadka iyo waxbarashada oo labada markaa aynu qaadanay sanadkan qorshihiisa hore marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa runtii dhammaan inta ka soo qayb gashay mas'uuliyiinta. dhinaca kale gudoomiyayaasha degmooyinka Gabiley iyo Allay baday oo ku hadlayay afka degmooyinka ka soo qayb galay kulankani ayaa iska daba maray muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo maamul daadajintu, waxaana ay mas'uuliyiinta degmooyinka kale ku booriyeen inay ka shaqeeyaan horumarinta arrimaha bulshada. ka degmaahan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin wixii maalintii hore aynu halkan ka bilownay ee aynu isla qaadanay iyo intii degmadeeda mas'uuliyadda ka saarnayd way bilaabantay intoodii badnayd. aad iyo aad baan ugu mahadinayaa. sharaf bay inoo tahay inaynu isu nimaadno aynu ka wada tashanno caafimaadka iyo waxbarashada oo ka mid ah waxyaalaha aasaasiga ah ee aynu ummadda u hayno bal sidaynu u sii horumari karno oo runtii aad iyo aad inoogu muhiima. Sikariye Nuux Ibrahim, codka bariga Afrika, gobolka Gabiley.